shalay gobolka banaadir ayaa wixii ka dhacay waa ogeydeen. waxa uu xanuunka badan ee aan aad iyo aad xalay iyo aan uga seexo waaye waxaa ka mid ah nin indhoolo ah ayaa joogay. bug markii qaraxii dhacay waa la kala cararay, qof walba meeshuu aadi karo walxa kaaga banaysan. wadaadkii indhoolkaa xaggee aadaya, meeluu aaduu garan waaye. inta u dhaqaaq darbi, inta u dhaqaaq albaab kale, inta u dhaqaaq meeshii ugu yimid waa dileen. adiga marka maxaa ku sifeynay? maxaa dhahe yani ninkaas qofka oo yani ay caatifo yar oo naxariis u gari weyday, waa indhool, meeluu ka baxo waaye, waa carari lahaa meeshii nafi gaarsiisaba. dabcan waa dhima lahayo maalintiis laakiin asoo carara dhima laha. kuwa badan ayagoo cararaay dhintay meel walba. nimanka meeshaas jooga, ninka ka cabsanayo cabsidaadu meel ma leh, cudurdaarna ma leh. ninka ay rajo uga jirto oo qabo ama biri un nimankan ay soo toosaanne, niman soo toosaya ma ahan. niman soo toosayo ma aha. waana loo caqli celiyey, waana loo waxeeyey, waana sheekh soomo hadaata inta wuxuu ka dhawaa culimmadoodii. nimanka culimmadoodii waa dileen, ayagaa dilayba, ma noola. nimankii oo culimmadooda waa la dhihi karay ama culimo ay u aqoon kareen, dad culimo waxay dileen kamid yihiin, dadka uma kala soor. marka nimankaas niman meel loo riixay iyo cid lagu riixay, cid loo xagliya ma qabaane. nimanku waa uun imtixaanka adduunyaday kamid yihiin. ilaahay nagu imtixaanay, ilaahayna aan cuskano, aan barino, aanaan iska qabanno, waxaan rabaa marka culimadii oo allah naxariista janna allah siiye maalintan maanta ay kusoo aaday maalintaas baxay maxkamaddii badbaadada markay soo xukuntay, ayagoo dikrinayo oo qaylinayo oo maxaan ku rahda faraxsan la sii waday oo la sii galbiyey. ayagaa nasiib yeeshayba, min aad iyo aad u nasiib badnaa ilaahay ka dhigay. maalintaasi culima naguma yareen, waa joogtay dalka culimo buuxday. meeqayna ahaayeen intii istaagtay oo maalintaas muxuu ahaye kelmad maya tiri. maanta marka inta hadda taagan, marka maalintaas loo fiiro waaba badan tahayba. maalintaasna culimmada waxay u aamusnaayeen, cabsiyay ahayd. wuxuu inay khaldan yihiin waa loo jeeday. nin ay ka khaldaneed ma jirin, nin ay shaki uga jiray inay khalad tahay waxaan oo aayaadkii qur-aanka kariimka ahay oo la tirtirayo ay tahay, nin may ka khaldaneed ma jirin. caamada oo dhagaha wax ka dhageysata ayaa ogeyd, fahamsaneed waxaan oo la sheegaya inay khaldan yihiin, sax ayna ahayn. laakiin haddana waa la cabsaday. cabsidu marka qaar waxay taabanay caqiidadaadii waxay taabanay inaad aamini weydo saacadaada, inaan saacadna laga soo hormarinay, saacadna aan laga dabdhigayn. aad aamini wayna marka cabsida kaa badataasad isleedahay meeshaan amay ku qarisaa, iyo hadalkan haddaad tirahdo ama lagu dhaafaa iyo ama lagaa beesadaan yarta haddaa iska bixiso amaad ku badbaadaysaa iyo wax lamida iyo ay kugu gelin. waxaan marka culimo allahi maanta waa idi hortaaganahay, xujada aan sheegayo waaye. waxaan diyaar u nahay in aan diinta ilaahay iskale, innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun. diintiyaan celinaynaa oon ilaalinaynaa oon waxayna aan u taagana. laakiin waxaan rabnaa diinte macaamilka adduunyada dhexdeeda wixii uga khaldamaayo ama loogu khaldaya inaan toosinaan rabnaa, oo siday ahayd ay ahaato. 1400 sano iyo jarjar ka hor siday ahayd ay tahay, sidaas inay ahaato. sidaa iyo asbaabtii ilaahay usoo dejiye diinta uu noo sheegay, sidai inay ahaato nolosha dadka, wanaagga, ficnaanta. haddii diintaani qows iyo hasra oo inta 100 sano meed ay isdilaayeen la yiri ay midaysay, war annagoo maanta midaysa waxa noo dhim wax yar waaye. waxa yartaa diinta intaan cuskano aan midowno horena aan soconno. aqoonteedni waa leenahay, dhaqaatiir naguma yara,
injineer naguma yara siyaasiyiin xataa naguma yara maxaa intaan yartaa waa inta yaroo noo dhiman oo waxa kaliya na miday karo sugan keen karo reer hebelna ma miday 4.5 na ma midayn karto wax kasta haday noqoto na ma midayn karto 4.5 laan waaba qayb waaba nala qaybiyo afar iyo intaan yartaa ahaatina la yiri oo qofna soo tirisay qofna og afartaan waa yihiin la yiri meeray ku siman yihiin qof cadeyn karto oo inay isla egin cadeyn karto male midkaan waa qoladan kale waa nus la yiri meeray nus ku yihiin cid cadeyn karto soo tirisay magag waa horta waxa laga hadlayaa hadda nasab kale iyo wax kale ma laakiin meel ay ku yar yihiin cid soo tirisay ku iyo laba soo tir allah u naxariistee nin la dhigi jiray Mawlid Macaani ayaa markii la yiraahdo dadka laga tira badan yahay oo istaagi jiray markaasuu uu jooji dadka laga tira badan yahay hadheena dadka laga qaylo badan yahay dheh marka waxa waaye waxaan rabnaa waxa soo dhan hal meel ay xal ku leeyihiin meesha xal ku leeyihiin waxa waaye diinta dhexdeeda waa halkaas meel ay xal ku leeyihiin in amaan isku raaci kana reer hebel hadana reer hebel anaga idinka badan qolo inta dhaana ama hayo waa naga badantiina nawada ama leedahay isku raaci meen laakiin wadadan wadadii ilaahay waaye waa wax isku raaci kana qofkii diidana qof qaldan inuu yahay Allah wada arkaa xagga laga wada istaaga yo meesha ay ka dhowdahay geedda waa meesha 32 sano inay nagu qaadato sax ma maanta markaan aan wax aan ka fikrayna aan sameyn ma baabi'i karaan Kamal Ataturk ayaa sameeyay hay'ad culimo intentionki niyadiisa maalintaas wixii uu wadan lahay isaga garanayo muxuu ahaay ilaahay og laakiin dad badan waxay u fasiraan diinta xoogaa lagu riixayo oo lagu fogeynayo oo dadkiina maadaama ay muslimiin yihiin ka taga diinta lama wada dhigi karina diinta xaqay leedahay qofkii diini amuurada ka hadlayo xagga aad meelaha loo sameeyay meeshii dawladda gacanta ku hayso saan yeelay laakiin maanta waa maxay maanta waa meesha kaliya oo hadda Turkiga ay ka saxantay ka istaagtay ay ka toosan tahay waa oo maanta magaalooyinka hadaad marto awal magaalo iska Yurub oo ay iska ahaa jirtay laakiin magaalo oo dad masaajida iyo manaaradaha ku yaalo kuwii oo Uthmaaniyiinta ay ka tageen ayaa ku ooli jiray maanta kuwa cusub casri ah ka dhismoa maalin walba maalinta ka dambeysay markaas ma aha inta ka sameeyay inta qaadana Yurub geeyay as Yurub ka dhismoa meel walba diintu inay tandiim leedahay oo tandiim dawli ah oo hay'adaha dawladda oo jiro oo kamid ah waxa la yiraahdaa waad maqasheen hay'adaas hay'addu waa madax banaan tahay dawladnimada kama madax banaana laakiin waxa waaye shaqadeeda iyo takhasusaadkeeda iyo wixeeday u madax banaan tahay waay hay'adda dhismayso waa hay'ad dawladeed laakiin maxay u madax banaan tahay shaqadaas oo muxuu ahaa mandate-kaas la siiyay waajibaadkaas ay qaadatay ayay u madax banaan tahay oo aan lagu faragelinin qaraaraad ka gaari karto wax ka gaari ka waxay karto laakiin hay'ad dawladeed waa dawladdan dalkan dawladda oo ay ku dhex jirtaa oo dawladnimadii ay ilaalinay oo dadkii ilaalinay oo maxaan ku iraadaay wixii oo dhan ilaalinay waa sheega maalin walba dastuurka yarka oo sida aan u noolaanayna aan qaanuun kasto oo shariicada ka hor islaamka ka hor imaanaya qaanuun kama noqon karo dalkaana ku taa mabda weyn oo dhaxgal oo fiican waa laakiin maxaa naga maqan yaa dhahaya qaanuunkan shariicada ka hor imaanaa sax kuma aha yaa dhahaya ana dhahay adiga ma yaamad leedahay asiga wuxuu leeyahay bal aan isku noqono ma yasaan laga moodin kan yaa dhahayo oo inta loo geeyahay qaanuunkaana la rabaa dadka in lagu dhaqaa هي أهل وسهلا أنت سوق قد سوق لقى الشروع للصوت قانون كان أنت هلا بدلوا أهل وسهلا شرع هذا كور إمام ماي أنتوا شرع هذا كور إمامنا قانون كان سيدي سبق قانون سعى كرمها معظم أنت سبضا وشرع هذا كور إمامنا مركا هلا النقط يا دهايو علماء الله waxa maanta aad u fadhidaan iyo talada maanta aad u fadhidaan taladaas waay meeshii laga dheerayo oo qaanuunka waa hubna hadda dastuurka saas waa noo qoran tahay laakiin hadana wali waxa laga yaabaa inaan marma aan baas gareyno aan soo saarno qawaaniin oo meel qaar kood ama waa boqolkiiba korman shakil la gali karo dhig karo ruuxan sharciyada muwaafaqsan tahay muxuu ahay qodobkan sharciyada muwaafaqsan yahay laga dhigi karo badan inay jiraan ama kuwii hore u jiray oo wali la bedelin ha aadaan ama xataa kuwa waayahan dambe la sameeyay oo aan anagu aan sameeyay iyo kuwii naga horeeyay baryahan dambe waxa la yiraahdaa jamhuuriyadda saddexaad
inta ay jirtay la sameeyay ha ahaado qodobkaas dastuurkeenu ku jiraa waa qodob fiican oo sax ah laakiin weelkiisii yaa naga maqan dastuurkaa dhisnay waxaan dhahnay maxkamad dastuuri ah oo dastuurka ilaaliso oo qofka muwaadinka ah haddii lagu xadgudbo oo u tago yiraaho xuquuqdeedii muwaadinnimaa lagu xadgudbo uu yiraah maxkamada kale waa sameyn dhammaan waa sameyn waxaasoo dhan shuruucda haya oo isku haya oo muwaadinkan Soomaaliga ah ee muslimka ah lagu xukumaayo inay waafaqsan yihiin wixii uu aaminsanaa diintiisii waayo waxa oo weli aan naga bardhiman oo aan rabno in aan dastuurku waxa kaloo leeyahay diinta islaamka diin aan ahayn dalkan laguma faafi karo ma jiri jirin Soomaaliya marar badan yani ma aha dad kale oo muslimiin aan dalkan kuma noolaan karaan ma aha diintooda kuma dhex caabudi karaan maadaama inta joogaan ma ahan laakiin waxa laga hadlaa faafin ilmihi in diinta diinan ahayn loo sheego dadka intii nuglay oo maxaan ku raad baahneed waa id baahi tirayna inta la yiraahdo diinta diinan ahayn loo sheego safarkii hore aniga meeshan madaxweynaha ka ahay dalkan waxaan la ii keenay oo hay'adda nabad sugidda waliba ay ii keentay ay dhahday meeshan waxa ka socdo shiicayn dadka waa la shiiceeyo haye say wax u jiraan waa dadka masaakiinta ah yaa la shiiceeyo gabdhaha la isku keenay ilma agoon haysto harqaamana loo gaday tababaraa la siiyey walaxa la siiyey waana lagu dhex jiraa dhalinyara loo yeeray maxaa u gursuwayseen dhaqaale ma haysano haya zawaaj jamaaciyeedii sameynayna waa lagu dhex jiraa waxaasoo dhan waa afcaal oo fiican waay laakiin ilaahay dartiis maa loo sameeyoha mase nimaa muxuu ahay ajenda kale uu ku dhex fushana diinta marka in wajiga toosan inta la muujiyo dhexdeeda wax lagu fushado waa fiirinay inta ka fiiri xagga ka soo fiiri war adiga waxaan cadeyn ma loo hayo war waxaan sax ma tahay meel walba waa la isku soo raacay war waxaan yaa ka dambeey dadkaana ka dambeey waa dadka ka dambeey oo joogay oo magacyo leh oo diblomaasiyiin ah oo hay'ada samafal ku joogo oo kan ku joogaa naloo keenay waa fiirinay dadkan iyo say ku yimideen iyo meeshay ka yimideen iyo kulli aan fiirin haddaan raacdayno oo dhahna kan nidaamkii loo soo diray diblomaasiyadda sax kuma aha ha naga baxo haddaan dhahno waa la keenaa beri mid kalea la keenaa waxa uu ninkan aan ku raacdaynaynaana wax shaqo xumo ma ahane waa wax ooba loo sameeyeyba wixii loo jirsiiyey oo qabanayo waay marka inaad mid bedesho mid kale haddana keentood haddana beri ka bacdi maasoo waa xirnay safaaraddeen xirnay laba hay-adood oo samafal aan xirnay hay'adda Khomeini Foundation la dhihi jiray iyo hay'adda bisha cas ee Iiraaniyiinta la dhahay oo ragga waxaas wadaa ay ku dhex jireen war haddaan aan tabaalacsanahay oon la daala dhacaynaa sunniyiintii iyo shaaficinimadii iyo wixii dhexdoodaan hadda aan la daala dhaco haynaa haddii shiica ay maanta dambe ay noo timaado saa la yeela dalkaani dadka waa kala tageen waa la kala cararay wax badan waa noo imaan doonaan mid shiicanimo sheeganayo Soomaali ah waa noo imaan doonaan mid kristaan oo mactabkii wato oo Soomaali ah waa noo imaan doonaa laakiin waxaasoo dhan anagoo meel u haysano oo nidaam u haysano oo institution saas ma qorta laga gooyo bas ma dhici karto meel masaafad weyn ee Soomaaliya oo ku dhacay dalkan muu dal kale mali laakiin waa inaan weel noo tolan yahay on weelkaasi aan ku si aan ugu dhaxayno ay noo samaysan tahay oo aan ugu yaraan adcaful iimaan waa maxay inaanu nagu si dhex faafi karin marka haddii kalena si oo nidaamsan aanba isaga maaray karnaa iyadoo aanan ahayn muxuu ahay diinka nacayb iyo dad kale muxuu ahay magaciisii haddii marka qaanuun aan sharciyada waafaqsanayn dalka laguma dhaqi karo go'aan hore loo gaaray haddii hore loo gaaray diin aan diinta islaamka ahayn dalka laguma faafi karo oo dadka lama bari karo in aan marka aan gacmihii waxaas noo ilaali lahay iyo indhihii noo ilaali lahay iyo aan yeelan weyno annagu dhihidda aan dhahnay intaasi wax macnaha ku fadhida malaha war oo warqad ku qoran oo meel iska yaallo ahaana maanta marka ilaahay idinkiis ilaalinta
diinta iyo horumarinteeda waa maxay fududeynteeda in la fududeeyo dadku inay bartaan inay fahmaan inay maxaan ku raadaya ku dhaqmaan yani waxa ummadda caamka ah khuseeyaan khuseeyo sida hadda gabadha walaashay ahayd waxyaabaha fardiga cibada aniga jirtaa manaan caawo dhan aan taagnaanayo ilaahay hortiisa taagnaanayo iyo haddaan iska seexanayo aniga jirtaa haddaan inta haddaan yeelayo ilaahna ciqaabta dembiga aan gala lagu ciqaabma ajarka adiga aad shaqaysatana la isiimaa aniga laakiin waxa ummadda caamka ah oo naga wada dhexeeyo oo na taabanayo oo barashada mafaahimta maxaan ku yidhahdaa fududeynta qofaa zaki inuu bixiyo rabo soo u bixina haddii maanta dadka fuqarada ay nagu badan yihiin iyo dadka muxuu ahay zakada dadka ay ku waajibtay ay nagu badan yihiin waxaan rajaynaynaa anaan aaminsanahay ilaahay idankiis inaan gaari doono maalin aan qofaan zaka siina aan weyno dalkan wuu gaara wuu leeyahay khayraadkiisii iyo resourcekiisii iyo wanaagiisii wuu leeyahay maalin inuu gaaro qof Soomaali ah oo muxuu ahay miskiin ah oo maxaan ku yiraahdaa ama duruufaysan in la waayo maalintaas zakadiisa yeelay gurigaaga ma isaga reebanay bangigaaga ma isaga shubanay يعني سيدا هذا كورب تاريخ ذينا مرة بدنا هذا الصح صليا زي كذا أنت أورورين أنا أنت قاعد نوعا وما ذكر إيميلك كلا لو مسلمين مدنا لوك أنا هذا وأنا لوك أنا لوك أنا كو يطبعا كي مجاعدي ماشي عن كذا عادي تبرعات كوب بدنا ونما كولا لنا تركيا أي كائن هي أدى عن سميسان عن لنا هاي تودا ودي كان تودا أي العكس كنت saddex boqol iyo konton milyan oo dollar ay hay'adda soo ururisay ummadda inta dhex gashay soo qaaday inta soo dhiibtay badankeed waa waxa isbitaalada lagu dhisay xaafadihii aad arkaysay lagu dhisay dadka loogu gargaaray qalabka lagu keenay wax walba lagu sameeyay ahay